xalay waxaan dhageysanaynay iyadoo xukuumaddu leedahay muddada la kordhiyay dib u dhaca doorashooyinka waxa uu sababa xisbiga wadani aad iyo aad baan uga xunnahay iyadoo ummaddu ay wada og tahay xisbiga wadani muddadii markii waqtigii dhammaaday 2015 baa madaxtooyadu inay dhacdo doorashadii madaxtooyadu 26 Juun si walba xisbiga wadani wuxuu isku dayay inay muddada ku dhacdo komishanka qaranku wuxuu isku dayay inay muddada ku dhacdo oo muddada lagu daraa ay noqoto 6 bilood oo kaliya waxa loogu jawaabay inay dastuur qaran jabiyeen komishankii dhamaa ee qaranku lahaa ayadoo wasiiradaadu madaxweyne ay hantidii ummadda iyo dhaqaalihii ummadda ku bixiyeen sidii ay muddo kordhin aan hore u dhicin oo 22 bilooda ay u hirgelin lahaayeen xisbiga wadani arrinta aad iyo aad buu uga hor yimid sida bulshadu la socoto ayagoo wasiiradaadu taa ka faa'iideysanaya madaxweyne waxay kordhiyeen muddo madaxtooyadii waxa ka sii daran oo caalamku maanta la yaabayahay oo aadta Soomaaliland maanta godka ku riday in la kordhiyo 3 sanadood kulligii guurtiga oo 26 sanadood hore fadhiyay ama 25 sanadood hore fadhiyay adduunyada wax meel ka dhacay ma inay korsadaan in kulligii wakiilada 12 sanadood fadhiyay isagana loo kordhiyo 2 sanadood oo kulligii deegaanka la raaciyo oo time-koogba wali aanu gaadhin nasiib darrada dalka ku habsatay ku dhacday doorasho la'aanta Soomaaliya nagu dhaaftay maanta aynu godka madow ku dhacnay waxa uu hogaana xukuumadda maanta aad hogaamiso iyo wasiirada aad soo dooratay ayaa ka shaqeynaya inaanay dalkan doorasho ka dhicin haddana waxaan ognahay oo jira oo dhaba inaan lacagtii xukuumaddu ay ku ballan qaaday aanay bixin oo komishankii lacagtii loogu talagalay aan la siin ayaanu ila badan oo xogogaal markaanu ayaa dadka ummaddu ay sheegayaan oo suuqa ku jirta oo isleenay waa dhab taas waxay cadeynaysaa ragga wasiirada kuwii inay rabaan inay meesha sii korsadaan maalin walba oo ay meesha ka tagin doorashada ay dalka ka dhacin